السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقت كستو وايدين تحي وناكسن داودياشا ku xiran janaalkeen aan duceysana media ku soo dhawaada barnaamij cusub oo aan maanta diiradda ku saari doono nolosha guud ee wiilka la magac baxay ama ninaasta ka dhigtay qurux ku dhiigle. maxaad ka taqaanaa noloshiisa guud, wuxuu asiga yahay gormasa social media soo galay, yaasa garab ka siiyay in uu heerkan YouTube-kiisa soo gaaro maanta. barnaamijkeena ayaan ku soo qaadan doonaa anigoo duceysana ayaa daawadayaal saaxiibayaal barnaamijkeena alla ilaahay idin daadiyay doono Cabdiraxmaan Shaataha ayaa xagga kaamirada saaxiibayaal iga saacidaya ku soo dhawaada markale barnaamijkeena. waa tahay daawadayaal barnaamijkeena ayaan u gudagali doonaa su'aalo kooban ayaana weydiin doonaa qurux ku dhiigle wiilka lagu magacaabo YouTube-ka ama TikTok-ga ama Facebook-ga inta badan qaarkiin aad ka aragtaan ama inta badan aad u aragtaanba daawadayaal su'aalo kooban. su'aalaha ayaana waxa isugu jiri doonaan kuwa noloshiisa quseeya kuwa quseeya xilliga uu soo galay baraha bulshada kuwa quseeya cid garab ka siisay in uu caan noqdo ama uu asigu uu magac yeesho. marka ugu horeen su'aasha koowaad aan ku bilaabayo waxay tahay ugu horeen ku soo dhawow channelka Duceysana Media. waxaad noo sheegtaa ama aad noo sharaxdaa magacaaga oo saddexan ama magacaada saxda ah marka laga soo tago inaastada. walaalkayga magacayga oo saddexan waa Maxamed Bashiir Maxamed. waa tahay baraha bulshada ama social media goormee ayaad soo gashay, xageesa ka bilowday adiga ahaan? social media waxaa soo galay 26 December 2019 kii aan soo galay. walow 2019 kii markuu dhamaaday 2020 kii la galay aan saameyn ku yeeshay aalado badan sida TikTok iyo Instagram-ka. walow YouTube-ka 2020 aan aad u soo galay. inta kale waxaan ugu jiray si gaabis ah oo marmar leen soo tuurinay dhaxtaal. waa tahay adiga ahaan waqtigaaga ugu badan wadankee ku qaadatay ama aad ku soo barbaartay? waqtigayga ugu badnaa waxaan ku soo qaatay Muqdisho, waliba xaafadda Buulaxubey, gobolka Banaadir aan aad ugu soo barbaaray. waqtigayga ugu badnaana asagaan ku soo qaatay, wax ku bartay, ku soo barbaaray. kaftanka, qaraaxada, walaalnimada, wadaniyada waxay tahayna iyo dadka sokeeyaha in la dhaweysto waa meesha kaliya aan ku bartay. sharaf iyo karaama la yareer Muqdisho. waa tahay ma ka mid tahay youtuberada jecel in ay noqdaan fanaaniinta ama fanaanka? adigoo youtuber ah ma jeceshahay inaad fanka ku soo biirto ama aad fanaan noqoto bulshaduna ay ku daawadaan ama ay ku dhageystaan? aniga ma ihi youtuberada qaar jecel inay fanaan noqdaan. walow mararka qaar aan jeclahay heesaha qaar dareenka leh fanaaniinta qaar ay sameeyaan inaan iska dhageysto, laakiin ma jecli inaan fanaan noqdo. waayo laakiin waqtiga waxaa la dhahaa maalmuhu waa isku mid balse dhacdooyinkay ku kala duwan yihiin. waxaa laga yaabaa waxaan hadda leeyahay ma jecli beri in ay shaqadayda noqoto, waayo waqtiga qofna ma bedelo ay wuxuu muujiya xaqiiqda dhabta ee qofka. marka waxaa jira waxyaabo hadda aan ma raba dhahay beri laga yaabaa inaan noqdo, laakiin hadda xaaliyan ma jecli inaan fanaan noqdo. waa tahay aad iyo aad su'aasha ugu dambeysa oo aan ku weydiinayna waxay tahay yaad isleedahay waa uu kugu dhiirigeliyey in aad shaqadan aad qabato ama baraha bulshada aad soo gasho oo aad adigu hami ka lahayd? yaa kugu dhiirigeliyey ama ku garab istaagay oo aad isleedahay alleelay qofkaas ayaa garab istaagay hadafkeygana inaan rumeeyo isagaa ka dambeeyey? qofka bini'aadanka ah markuu caan noqdo ama bulshada uu saameyn ku yeesho ma jecla in noloshiisii hore la soo xasuusiyo, ama mararka qaar wuxuu xaqiraa qofka garabka soo siiyey. aniga wixii hadal, hal abuur, karti, yacni dhalinyaranimo, bashaashnimo, taa waxaa waaye anaga bulshada isku baray. laakiin waxaa jira waxyaabo qofka bini'aadanka uu kaa caawiyo. noloshayda waxaa saameyn ku lahaa oo in badan i caawiyey, dhan kaamira ha noqoto, dhan dhiirigelin ha noqoto, dhan garab istaag ha noqoto. waayo waxaa jira waqtiya aad u baahan tahay, waayo qof keliya adduunka ku noolaan kara ma jiro, qof walba garab u baahan yahay. waa sababta uu alla subxaana wa tacaala noo leeyahay ibarya waa idi ajiiba. taa waxay ku cadaynaysaa bini'aadanka inaysan baahidiisa koobneen. qofkii ku dhaha keli ayaan wax noqon karaa, yacni keli ayaan adduunka saameyn ku yeelan karaa, maya. haddii keli aan noolaan kartid
ama keli haddaad noolaan kartid waalid iyo walaal iyo xaas intaba ma u baahneen mararka qaar garab waa u baahan tahay walaalkayga cabdalla weeye walaalkayga jamaal jaceylo aan in badan i caawiyey dhanka kaamirada ha noqoto iyo dhanka dhiirigelinta yani positionka markuu qofka walaalka ah ku dhiirigeliyo ama qofka walaalka ah uu ku caawiyo waxaad gaaraysaa daraja aan la soo koobi karin waad ku mahadsan tahay qurux ku dhigle su'aalaha kooban oo aan ku weydiinaynay isla marxaantana barnaamijkeena Aleylea aad uga qayb gashay daawada adiguna waad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijkan fadlan muuqaalka like sar oo subscribe sar channelkeenan kuna mahadsanid iyo kulanti dambe barnaamijka mid lacana waxaan idin leeyahay anigoo duceysnaa iyo Cabdiraxmaan Shaata oo idin leeyahay sidaas iyo amaan Allah